waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena. Soo dhawaada aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigno. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar. haddii muuqaalku ku cajib galiyana sidoo kale like inoo saar. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago taariikh nololeedka jilaaga caanka ah ee Sunil Shetty ama Balwan waxaad u taqaanaba. waxaan idinla wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah iyo 10kiisa filim ee ugu fiican taariikh ahaan aflaamta uu sameeyay. balse inta ugu gudagalin warbixinteena waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad janaalka subscribe inoo saartaan. soo dhawaada saaxiibayaal. Sunil Shetty ama Balwan waxa uu dhashay 11 Agoosto sanadii 1961. da'diisu hadda waxa weeyaan 60 jir. waxa uu ku dhashay gobol lagu magacaabo Karnataka oo ka tirsan gudaha dalkaasi India. Sunil Shetty abi waxa lagu magacaabaa Viraba Shetty waa uu geeriyooday saaxiibayaal. markaan eegno dadka la dhashay ninkan waxa la sheegaa in la dhalatay hal gabarta oo lagu magacaabo iyadana Sujata Shetty waxayna ka weyn tahay jilaagan caanka ah Sunil Shetty. markaan eegno waqtigu fanka ku soo biiray jilaagan waxa la sheegaa inuu fanka ku soo biiray sanadii 1992. filimkiisii ugu horeeyay waxa lagu magacaabaa Balwan waxaana qayb ka ahaa gabadhii ama atrishadii birsama ama sagaashameeyadii caanka ahayd ee Divya Bharti. sidoo kale waxa doorka kaabalaadnimada door weyn ka qaataan saaxiibayaal ninka lagu magacaabo Dani. ninkani waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Mana Shetty October sanadii ama bishii October sanadii 1991. waxay isku dhaleen laba caruur ah kuwa lagu kala magacaabo Ahana Shetty ama Ahan Shetty waa dhanka wiilka weeyaan ee gabadhan waxa lagu magacaabaa Aditya Shetty. xaaska Sunil Shetty Mana Shetty waxa la sheegaa inay tahay qof muslimada ama ku dhalatay diinta Islaamka. dhanka kale markaan eegno ninkan lagu magacaabo Sunil Shetty ama Balwan iyo waxyaabaha uu xiiseeyay haddii aan soo koobno saaxiibayaal ninkan waxa la leeyahay dhanka aktarada waxa uu aad u taageeraa ninka lagu magacaabo Amitabh Bachchan ama Balwan saaxiibayaal. dhanka hablahana ama atrishadaha Bollywoodka waxa uu aad u taageeraa Nargis atrishadii barnaamijka caankeed waana hooyada dhashay ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt. sidoo kale waxa uu aad u taageeraa Sharmila Thakur oo iyaduna ah hooyada dhashay ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan. atrishada dhankii sagaashameeyada caanka ahna waxa uu aad u taageeraa gabadha lagu magacaabo Kajal iyo sidoo kale Madhuri Dixit saaxiibayaal. ninkan aflaamta uu xiiseeyay waxa lagu sheegaa filimka lagu magacaabo Sharabi oo ah mid kamid ah aflaamta barnaamijka ee Hindi ay sameeyeen ama Bollywood ay sameeyeen iyo sidoo kale filimka shactarada badan ee Hera Fairy oo asiga iyo Sunil Balwan waa Balwani iyo sidoo kale Akshay Kumar iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Paresh Rawal ama oo Sabuka isla sameeyeen. labadaas filim ayuu aad u jecel yahay ninkani. dhanka directorada wuxuu aad u taageeraa JB Dude ninka lagu magacaabo iyo sidoo kale directorada kale caanka ah ee Gulzar waxa kale oo aad u taageeraa ninka lagu magacaabo Priyadarshan waa directorkii sameeyay filimkii caanka ah Tumbin ka oo lagu soo caanbixiyay actor aad u daayara waxa uu soo baxay filimkaasi bilowgii qarnigii 12aad. dhanka kale saaxiibayaal haddii aan eegno ninkan iyo 10kiisa filim ama Sunil Shetty iyo 10kiisa filim ee ugu fiican taariikhda aflaamta uu sameeyay waxa qaybta koowaad ku jira ama filimka ugu horeeyay waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Border. filimkan Border waxa ku weeliyay jilaayaal dhowr ah waxaana lagu xusi karaa Akshay Khanna oo Soomaalida ah wiilka Mastan sidoo kale Sunil Dolan ayaa sidoo kale filimkan qayb ka ah waana filimkii ugu weynaa taariikhda ama aflaamta uu sameeyay midkii ugu weynaa weeyaa filimkan Border sanadii 1997 ayuu soo baxay saaxiibayaal. filimka labaad waa filimka lagu magacaabo Bai ama Bati waxaad tiraahdaanba. filimkan Bai waxa uu soo baxay ama la daawado sanadii 1997. waxa ku weeliyay ninkan lagu magacaabo ama filimkan waxa ku weeliyeen Kadir Khan Pooja Badra atrishada lagu magacaabo sidoo kale Sonali Bandra ayaa ka soo muuqatay filimkani. sidoo kale waxa filimkani qayb weyn ka qaatay wiilka da'da yar ama aktorihii xiliga ama wiilkii aad ku daayaray aflaamtii ama filimkii caanka Rajan Dustani iyo aflaam kale oo kamid ah Zulmi ka soo muuqday. sidoo kale filimkan waa uu ku jiraa waxa lagu magacaabaa Qiminadu ama Qiminadu lagu magacaabo wiilkaasi waxa uu hadda qabaa gabarta ka yar ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan. filimkan Bai waxa uu kamid yahay aflaamta sidoo kale lagu ammaan ninka lagu magacaabo Balwan. filimka saddexaad haddii aan eegno saaxiibayaal waa filimka lagu magacaabo Dadkan waxa uu soo baxay sanadii 2000 waxaana hogaamiyaalkooda ah Sunil Shetty Akshay Kumar Shilpa Shetty iyo sidoo kale atrishadii caanka ahayd ee Mahima Jodri. filimka afraad haddii aan eegno saaxiibayaal waa filimka lagu magacaabo Anti waxa la daawaday sanadii 1994. waxa ku weeliyay ninkani Balwan waxa filimkan ku weeliyay atrishada caanka ah ee Sumia Ali gabadha lagu magacaabo sidoo kale jilaaga kale Paresh Rawal ama Sabuka waxa tiraahdaa. filimka shanaad waa filimka caanka ah Mohra waxa la daawaday sanadii 1994.
balwan filimkan waxaa ku weeliyeen jilayaasha caanka ah Akshay Kumar, Nasruddin Shah ee Soomaalida dhahan Jalwa, sidoo kale waxaa ka soo muuqdeen Baraka Sharawal, Gulshan Grover ee Soomaalida dhaxraar ee dhahan Raza Murad, Rafina Tondon. dadyo badan ayaa filimkan ka soo wada muuqday saaxiibayaal ama doorar muhiim ah ku lahaa. sidoo kale waxaa kamid ah dadka doorarka ku lahaa ninka lagu magacaabo ninkii lagu magacaabi jiray Sadajif ama Amrabukar nin lagu magacaabo Soomaalida ay dhahan laakiin leeb ay dhahan inkastoo uu geeriyooday. filimkaas waa uu ka soo muuqday. marka filimkan waa filimkii shanaad ee balwan lagu amaanay 10kiisa filimka lixaad daan ay kinane waa filimka shactarada badan ee Hiravir waxaa la daawaday sanadii 2000 waxaana ku weeliyeen sidoo kale Akshay Kumar iyo sidoo ninka lagu magacaabo Baraka Sharawal. filimka toddobaad daan eegna waa filimkiisii ugu horeeyay ee uu sameeyay waana balwan. kaalinta toddobaad balwan ayaa soo galay waxaana la daawaday filimkan sanadii 1992 saaxiibayaal. filimka sideedaad waa Krishna waxaa la daawaday sanadii 1996 waxaa ku weeliyeen atrishada caanka ah Krishna Kapoor Omburi oo Soomaalida isaguna ay dhahan qaan inkastoo asaguna geeriyooday Shakti Kapoor. filimkan Krishna Soomaalida qaar waxay dhahan goora gurana gooskiisi wuxuuna kamid yahay aflaamta lagu tarjumay studio Alfagi saaxiibayaal. sagaalaad waxaa soo galay filimka caanka ah Gobi Kishan ama balwan Gobi Bac. filimkan waxaa la daawaday sanadii 1994 waxaa ku weeliyeen atrishada caanka ah Shilba Shiti, sidoo kale atrishadii sagaashmeediyadana aflaamta kasoo muuqan jirtay Shilba Sharadkar waxaana la dhalatay Namrata Sharadkar gabadha lagu magacaabo hadda meesh babu u dhaxdo waana gabadhii filimkii Hindustani ee Ashad Warsi ku weelinaysay. filimka tobanaad waa filimka lagu magacaabo Sabot waxa uu soo baxay sanadii 1996 waxaa hogaamiyaalkooda ah Sunil Shetty, Akshay Kumar, Sonali Bandra iyo sidoo kale Krishna Kapoor. saaxiibayaal filimkaas ama 10kaas filim weeyaan 10kiisa filim ay ugu fiican ninka lagu magacaabo balwan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xogta yareed aan kaga hadlaynay taariikh nololeedka jilaaga caanka ah Sunil Shetty ama balwan waxaad u taqaanaanba. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena like inoo saar si saaxiibo badan u gaaro. haddii aad janaalku cusub tahana sidoo kale subscribe inoo saar. haddaad ra'yi fikri wax qabtane commentiga hoos noogu reeba. waad mahadsantihiin saaxiibayaal.